dhawaaq ka soo yeelay jabhad sheegatay magacayaga Muuse Abakorna ka fac weyn dad yar oo meel istaaga oo yiraaha jabhad baanu nahay midaanu la ognahayna maaha mid lagu tala galayna maaha inamadaana waxaanu leenahay ka soo noqda haddii Muuse Abakor wax sheeganayo miiska wada hadalka baanu imanaynaa oo la isugu imanayaa wuxuu tabanayo waxa ka hadlaya uqaasha suldaamada boqorada wixii ay tabanayaan war dadkiina islaamka ah fadhigaab jooga ceelaf weyn iyo fadhigaab ilaahay hadda taqaanin joojiya dagaalka uma ogin jamaad Siraadley ka jirta haddii bas inama waxtaynamada la sheegayna waxaynu ku ogin waxaanu ku ogin ciidanka dawladda ka mid ahaay raga meesha ka hadla gooray meesha ka socdaan halkan yimaadeen ma ogin Muuse Abakor wax sida loo sheegay waxna raalli ahaada marka waxa weeye dhawaaqa soo galay ee midiyaasha la soo geliyay ee rag ka mid uu sheegtay Muuse Abakor waanu ka bixinaynaa waana ka raali gelinay jabhada laga dhawaaqay Siraadley iyo deegaanka yagii cidda dhaqdhaqaajisay baanu baarayn meelo badan bay nala gashay meelaha ay nala gashay dawladdu waa ka mid hadaan dawladdu maxay uga jeedaa wax la yiri rag bay ku xumaynayaan wax afar inan jabhad Muuse Abakor ku abtirsanaysa ku dhawaaqdo ama naloo aanayo midna ma mana ogolin mana ogeyn ariga jabhada oo uu dhamaaday ariga ayaa lagu warwareegay jabhada sidaas uu ku dhan yahay uqaashu ay ku soo afjartay waxaan baaq nabadeed u dirayaa fadhigaab labada beelood isku laayay waxaan leenahay colaad halka ka oogsantay oo hadii bila caafimaad noqoto oo bila waxbarasho noqoto oo bila adeegii bulshada oo dhan ka maqnaado beeleedahay colaad iyo dagaal u leeyahay bifadlakum ilmaade rayaalo waxaan idin ka baraynaa inaa qoriga dhigtaan sida darteed jabhada lagu dhawaaqay deegaanka Siraadley dhawaaqeedu ka baxay arin Muuse Abakor uu og yahay maaha mid uu la socdona maaha Muuse Abakor ceergaabo ma oga lamana socdo kamana talin kamana tashan hadii la baadhayna oo samateer ugu isweydiiyay Muuse Abakorna arin la hayo oo Muuse Abakor uu og yahay uu noqon waayay sida darteed raagsiya laga jawaabtada hore looga jawaabay waxa ugu wacan waa la isbaadhanay arrinkaas meeshu ka yimi وسمكاف عبد الشيادن كالسن تيفي عرقابو